waxaa soo dhacday qaybtii 8aad ee silsiladii Milgo iyo Ismandhaaf qaybtan 8aad wuxuu gantaal culus ka soo fakaday dhanka iyo xaawaleyda fanaanadan cod ka baxsan ee Nimco loo fayaa tiri kolkuu miyiga jiray rag iman magaal gabay miisaan iyo murtiyaab loo lahaa inay dumar murmaan ka mamnuuc bay ahayd erayadan waxay ka soo maaxdeen abwaan Jamaal Cali Firan oo mar labaadkii rag ahaa dambaska ku xaaray abwaankan oo dhinaciisa dhulka la dhigay laayahay ayaa mar kale yiri labku wuu meelmayo ma gorfayaan masiir macaankii qaraarka iskaga milmo haatan macawuslo kama maarmaan xantana muusiga iyo laxanku waa asaasayaashii silsilada codqabtu waa deeq muqtaar cabdi waana hawlwadeennada midnimo qaran filmi soo idin leh yaa loo kala tegin weli fare kama qodne mamnuuc bay ahayd kolku miyiga jiray raggu imaan magaal gabay miisaan iyo murtiyaab luu lahaa inay dumar murmaanka mamnuuc bay ahayd macankiyo qaraarka iskaga milmo aatan maca musluhu kama maarmaan xamtana labku maydhmayo ma garfeeyaan masiir macankiyo qaraarka iskaga milmo aatan maca musluhu kama maarmaan xamtana شرف حقيقة ماهورانو حشود صارنا ماذا حصاره حقيقة رجل ماضي وحاتي نجا عيال شرف حقيقة ماهورانو حشود صارنا ماذا حصاره حقيقة رجل ماضي وحاتي نجا عيال hadnayno matano nitalo barna wiilka waan mas'uulka ma ahayn reerku malku dhaqdo maamulku ma jirina waa mucjise hadnayno matano nitalo يوم الخابط يقمر مرسنو لكن كيقها معان عيدنا كما مرتيو مسلم بانه مصريو دروع يجابي يوم الخابط يقمر مرسنو لكن كيقها
marna kama martiyo شرف حقيقة مهورانو حشود سارنا مادها حساره حقيقة رجل ماضيو وحاتين مجا عيال شرف حقيقة مهورانو حشود سارنا مادها حساره حقيقة رجل ماضيو وحاتين مجا عيال